عليكم soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalkani walaalaha family anu waxaan Muuse waxaan idin soo gudbinayaa maanta barnaamijkaasi oo aanu kaga hadli doono dhowr xaaladood oo ka dhacay xalqadii ina soo dhaaftay waatii 26aad oo aynu si fiican u sii faahfaahin hadii aynu taataabano waxa kamid ah xaaladda ninka lagu magacaabo Tolga halkii ay ku dambeyn doontaa sidoo kale xaaladda labada lamaane ee beerkii iyo IBK si halkay ay ku dambeyn doontaa maxaa ka cusub musalsalka walaalaha muuqaalkan ayaan idin kula wadaagi doonaa soo dhawaada mar labaad fadlan daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay ayaa soo booqato janaalkani walaalaha family fadlan subscribe saar janaalka sidoo kale muuqaalkan like saar aad iyo aad baad maasantahay intaasi ka bacdi aynu u guda galno muuqaalkeena maanta haddaba hadii aynu ku bilowno xaaladda Tolga waxaynu ognahay in uu hadda ku sugan yahay in oo uu la safan yahay tiimkani Umar iyo sidoo kale oo waxa uu caawiyaa sida aynu ku arkaynay xalqadii u dambeysay markii ay isku dayeen Sarbi iyo walaashiisa Yasmin inay waxyeelayaan oo ay waxyeelo u geystaan gabadhan lagu magacaabo Asiya waa kii caawiyay ee ay ugu tala galeen in ay ku shirqoolaan gabadhan lagu magacaabo Asiya waa kii intuu ay gabadhan lagu magacaabo IBK ay boojeysay dadkii oo ay gebi soo wada jeesay أو بيهي kala bedelay kadib ay half time kii markii ay break taagneyd labada gabdhood biyaha cabayeen ay gabadha Yasmin ahayd ku soo oo cabtay biyihii ay iyadu ugu tala gashay gabadhani Asiya lagu magacaabo halkaasina lagaga guuleystay oo ay guush ku raacday gabadhani Asiya lagu magacaabo wana sababta aan ku dhahayo waxa uu la safan yahay hadda wiilkani Tolga lagu magacaabo Umar iyo sidoo kale walaalshii iyo Duruk iyo waliba dadkaasi tiimkaasi ku jira Uljaniyo waa tahay hadii aynu halkaasi kaga gudubno arinka Caakif Tolga aan iraahdee haddaba haynu guda galno mowduuca labaad arinka labaad ayaan kaga hadlayno muuqaalkani waxa uu ku saabsan yahay gabadha lagu magacaabo IBK iyo waliba sidoo kale Beer oo iyaguna la safanaya gabadhani lagu magacaabo Suuse iyo waliba sidoo kale Umar ee khilaafka ka taagan oo ay isku mid yihiin digooda ay asxaabta ay yihiin ee Duruk iyo waliba Asiya ay iska faraxsan yihiin oo ay labadaasi ka qasnayn balse labadani kale ee lamaani waa Iberia sidoo kale waliba Asus ay ka qasan tahay oo ay khilaafkoodu dheeraaday walow lagu tilmaamaba Umar iyo waliba sidoo kale Suuse in ay u kala dhamaani doonto laqadka soo socdaan ay isku soo laaban doonin balse lama hubo arrinkaasi haddaba arrinkani beerkii iyo waliba sidoo kale gabadhan lagu magacaabo IBK xalqadiina soo dhaaftay 26aad mar ayaa ay heshiiyeen oo ay isku soo laabteen balse masi waarin jiritaankoodu oo isla xalqadaasiba waxa dhamaatay jiritaankoodu oo sidii hore ay ahaayeen xalqadkii ka horeeyayba ee isugu dhacsanayeen waana runtii lamaane hadal hayn badan dhaliyay oo muhiim ah musalsalkani walaalaha waa tahay dhankaas iyadna hadii aan kaga imano aynu u guda galno arrinka muhiimka ah ee isagna dhici doona xalqada soo socota ee 36aad ahna ninka Caakif lagu magacaabo in uu ku dhex jiro gaarigii gubanayay ay iska rahay islaanta Nishingu lagu magacaabo aynu ku arkaynay gooska dhexdiisa waana hadda arrinka ugu hadal haynta badan marka la eego musalsalkani walaalaha hadal hayntiisa sidaynu ka wada warqabnaba waxaynu ognahay ninkani Caakif lagu magacaabo in uu hadda ku jiro halis halqada soo socotana lagu wado in ay badbaadin doonaan dad fara badan oo muuqaalkii ka horeeyay waxaynu idin sheegnay ilaa meelaha 2 qof ayaan filayaa hadda laakiinse waxa la sheegayaa aynu xogog fara badan ku soo ururnay oo aynu soo baadhnay inoo badinayo dabcan laanta Shingu lagu magacaabo sidoo kale Duruk iyo waliba Orhan iyo Uljan afartaasi qof in loo badinayo in ay badbaadin doonaan ninkani lagu magacaabo Caakif balse ilaa xog kale oo iyadna oo sheegaysa ayaa jirta in ay ciid badbaadin doonin oo uu isagu ka soo dhex bixi doono meeshani ama baskani uu ku jiro hadda balse waxay u badan tahay arrinka hore oo waxa badbaadin doona sida aynu hore u soo sheegnay dabcan shakhsiyaadkaasi aynu hore u soo xusnay waa tahay dhankaas hadii aynu kaga gudubno wana soo laabanayna inta kale oo qaybta dambe ee muuqaalkani ayaa si fiican uga hadli doonaa aynu u guda galno arrinka xiga kaasi oo ah arrinka ku saabsan Shinguul iyo waliba gabadhani ama islaanta in lagu magacaabo Orhan
odayga Orhaan lagu magacaabo iyo weliba sidoo kale islaanta Shanguul lagu magacaabo ayuu ku saabsan yahay. waana arrin runtii in badan soo jiitameeyey oo labadaani qof sidaad wada ogtihiin marka hore waxay ahaayeen lamaane dabcan wixii intaa ka dambeeyey waxay matay islaantaan lagu magacaabo Gunuul ayaa arrinka soo dhex gashay isaguna Gunuul ayaa uu doortay oo uu raacay kadib wixii intaa ka dambeeyay halqadii dhaweyd tan ka horeysay ayaa waxa dhacday in gabadha yar ee Gunuul ay dhashay ay maasay soo qorto islaantaan Shanguul lagu magacaabo oo ay isaga dhigayso Orhaan kadib ay ka tiraahdo oo ay ku ballamiso hotel ay ku ballansanaayeen islaantii lagu magacaabi jiray Gunuul iyo weliba sidoo kale odayga Orhaan waa qorshe ay ugu tala gashay islaantaasi ayaa ahayd kadib waa tii aad wada ogeydeen wixii ka dhacay in ay imatay islaantii Shanguul iyadoo oo uurla halkii oo iyadoo aad u faraxsan kadibna ay aragtayba islaantii Gunuul iyo weliba sidoo kale odayga Orhaan oo isla fadhiya kadib ayay fahantay in ay sheekadaani ka dambaysaba gabadhan yar ee ay dhashay Gunuul waana sababta ay hadda sheekada Orhaan iyo weliba sidoo kale Shanguul ay u dhamaatay oo islaantaan Shanguul lagu magacaabo hadda dhow waa tii soo iibsanaysay gaariga hadda gooskooska lagu dhex gubayay halqadii dhaweyd ayaa soo iibsatay inaas darteedna waxa uu gubtay islaantaan lagu magacaabo Gunuul sida aynu ku arkaynay gooskooska dhexdiisa waa tahay haddaba arrinka Shanguul islaantaan lagu magacaabo iyo weliba sidoo kale odaygan Orhaan wali error ayaa ku jira oo dabcan war cad ma jiro iskuna sii wareerin mayno balse arrinkaasi weli war cad lagama soo saarin oo isku soo laabashadooduna ma cadda ugamana jeednaba in ay isku soo laabanayaan walow aynu wax kale lanagu tusi doono garan beeneed halqaadka soo socda waa tahay haddaba arrinka muhiim kale aynu u laabano arrin aynu hore uga soo hadalnay waa arrinkii Caakif Atakuule waana arrinka ugu muhiimsan ee aynu kaga hadlayno muuqaalkaani kuna soo xidhino muuqaalkaani sidaynu hore usoo sheegnay halqadaani soo socota arrinka ugu saameynta badan doona ee ugu fagfagta badan doona haddaba adiga ayaan ku weydiinayaa kuma ayuu noqon doonaa ama ayaad isleedahay uu badbaadin doonaa ninkani Caakif lagu magacaabo waa haddii uu badbaado fikirkaaga nagula wadaag commentiga adiga ayaan kula hadlayaa nagula wadaag commentiga fikirka aad ka qabto arrinkani ku saabsan ninkani Caakif Atakuul lagu magacaabo nin aad taariikhdiisa wada garanaysaan halka uu walaalaha sida uu u soo dhibay iyo welibana doorka uu ka soo qaatay dibta loo geysanayay walaalaha waa afartii walaale ninkii Caakif ahaana waa ka dhamaatay oo hadda waxaad arkaysaanba isagii oo Shanguul baryaya oo kana dhaxaya caawi oo ugu dambeynna waxaynu aragnaaba isagii oo gaariga lagu dhex gubay muuqaalkaanina intaas ayaan kusoo gabagabeynaya mahadsantihiin waan idin salaamayaa assalaamu calaykum